السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada channelkeena Hayfa Maalin. maanta waxaan ka hadli doonaa qiso cajiib ah horay u dhacday. sawirkan aad u jeedaan oo idin muuqda waa sawir baraha bulshada qabsaday ama ruuxay xilligii sanadkii 1967 kaasoo ka mid noqday sawirada ugu saameynta badnaa dunida iyo qulubta aadanaha oo dhan uu soo jiitay. sawirkan waxaa lagu magacaabaa dhunkashadii nololeed waxaana lagu keydiyay madxafyada dunida. waxaa jiro sida aan ognahay waxyaabaha adduunka cajiibka ah oo dhacaan dunida oo dhan qulubtooda soo jiidato. waxaa jira madxaf lagu keediyo dunida oo meel ka mid ah. haddaba sawirkan waxaa xiisaha uu leeyahay waxa ay tahay laba nin oo saaxiibo ah oo la kala yiraahdo Champion iyo Simpson oo ka shaqeynayay shaqo joogto ah ee loo yaqaan shaqada electricity-ga ee korontada ayaa maalin ayagoo saaran meesha kore ee korontada baalaha sida aan u naqaano oo iska sheekeysanayaan. waxay taagnaayeen meel aad u qurux badan. waxa ay ku fikireen maadaama qorax iyo halis ay ku jiraan shaqadana aad ay u dheer tahay inay sheekeystaan. waxaa dhacday midka kale inuu ugu sheekeeyo qiso aad iyo aad u qosol badan saaxiibkiisa kalena uu ku qoslo. waxay ahaayeen dad aad isku jeclaa ee aan ahayn shaqo kaliya, dad noloshooda iska warheeyo. run ahaantii xiriirada adduunka jira xiriirka ugu adag ayuu ka mid yahay xiriirka saaxiibtinimada. mararka qaarkood saaxiibkaagu wuxuu ka wanaagsan yahay walaalka adiga kula dhashay ee hooyada iyo aabaha dhaleen. mararka qaarkood saaxiibku wuxuu ka wanaagsan yahay qofka adiga aad jeceshahay. marka saaxiib qaarna way jiraan oo xaasidiin ah, kaasi saaxiib ma ahan. laakiin waxaa jira saaxiib naftiisa kuu huraya kuu qabanaya in ka badan inta uusan kuu qabanin walaalkaaga. runaantii dadkaasi waxay diidanayeen inay dareemaan daalka, qoraxda iyo khatarta meesha ka jirto. waad ogtihiin koronto qof ka shaqeynayo inaysan sahleen. sidaa u ahaayeen ee labadooda u sheekeysanayeen midka kaleentona ugu qoslinaya saaxiibkiisa ayaa waxaa dhacday midkii kaleento qaybta koro saarnaa waxaa dhacday in uu hal mar uu wadnihii istaagay. saaxiibkiisa midka wadnaha istaagaya waa Simpson, midka Champion la dhahayna waa uu sheekeynayay. hadalkii ayuu waday. soo marka Championkii ayaa isla markii iyo suunkii kursiga ku badbaaday. waxaa jira meesha kore saqafka kore markii aad saaran tahay waxaa jirto dadka oo wadamada hormaray koronto aad sameynayso wax kasta ayaa kugu dhici karo. si shil oo income ayaa maxaa la dhahaa u soo dhici kartaa. marka waxaa jira qof suun ayuu qofka xiranayaa. suunku wuxuu ku sii xiranayaa meesha uu dul saaran yahay si qofkaas sayti hadhow markuu wax ku dhaco uunan dhulka ugu dhicin, uunan u dhimanin ama dhaawac culus uu soo gaarin. marka suunkii ayaa celiyay. nasiib wanaag saaxiibkii Simpson ayaa arkay Champion oo korontadii inta qabsatay hal mar wadnihii garaaciisii istaagay. run ahaantii qof meel saqaf kore saaran oo aan la ogaan kareynin inuu dhiban yahay oo maxaa la dhahayaa gargaar degdeg ah meesha aysan ka dhaweyn way adag tahay sida lagu badbaadiyo. run ahaantii saaxiibku markii aan ku dhahayo mararka qaarkood dadka dhan ayuu ka wanaagsan yahay xiriirada ugu adag ayuu ku jiraa. asigoo og maanta qof koronto haysata haddii aad taabato inay adigana korontada ku qabanaydo muusan fiirin. Simpson inta soo cararay buu saaxiibkiisii neef siinayaa oo maadaama isbitaalkana ay ka gaarin dhakhtarka inta laga geynayo. runtii waa cajiib saaxiibtinimaduna markii lagu dhahayo dhunkashada nololeed. ma dhunkashada ma saaxiibkii uu neef siinayay ilaa uu ka gaarsiinayo. wuu dadaalay sidii uu saaxiibkii wadnihiisa garaaciisa ugu soo celin lahaa. nasiib wanaag saaxiibkiisii wuu neefsaday. isla markii waxaa lala cararay dhakhtarka ayaa la geeyay saaxiibkiisii Champion. markii dhakhtarka la geeyay muddo ayuu xanuunsanaa wuu caafimaaday. markuu uu caafimaaday
wuxuu aad u mahad celiyay ugu riyaaqay ugu farxay saaxiibkiisa runaantii qiso walba wax ayaad ka faa'iidaa waxyaabaha aan idin weydiinayo commentiga aad noogu reebaysaa waxaa ka mid ah videogan maxaad ka faa'iiday saaxiibtinimada maxaad ka aaminsan tahay haddii ay jiraan qof saaxiibkaaga sidaa oo kale waqti dhib badan kula soo maray iyo wanaag iyo dheef iyo dhib aad isla soo marteen halkan nagu meeshin garay hoos ka wac saaxiibkaaga una sheeg inuu yahay qof kugu qaaliya mar waliba si kasta oo aad u kala fogtihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waa mahadsantihiin.